الله أكبر الله أكبر ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan leeyahay gagsada geesiyaal baatiin waad gagsateen guushu lama helo iyadoon waxa weeye iyo gobonimada nafna go'in dhiig iyo dhuuxna loo daadin lama helo inaanu gagsano ku gagsano dawladnimada ku gagsano dadnimada ku gagsano gobonimada yaa inoo balana geesiyaasha xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan idin sheegayaa haddaan noolaano oo guusha iyo gobonimada ummadda Soomaaliyeed ay taamaysa aan soo qaban oo qabaarista waxa weeye ummadda Soomaaliyeed ka xoran inaanu ku noolaano annaga shacabkanaga Soomaaliyeed ba xornimo iyo gobonimo iyo sharaf iyo ciziba kii naga dhintaa ee waxa weeye ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna inuu ku dhimanayo xaq gelayana janno sidoo Ilaahay noo ballan qaadayba bismillaahir rahmaanir rahiim Ilaahay baa mahad leh magacaygu waa Cabdinaasir Maxamed Maxamed ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in muddo ahba halkan waxaan baaq uga darayaa shacabka Soomaaliyeed inay garab istaagaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee mar walba u dhimanaya ee dhiigooda dhuuxooda u horaya ee danahooda gaarka waxa weeye uga soo tagay ee waalidkooda uga soo tagay ee awlaadooda uga soo tagay ee xaasaskooda uga soo tagay furimaha iyo dhaxanta iyo dhamacda iyo gaajada iyo kuleelka waxa weeye u gagsanayo inay taakuleeyaan oo ay taageeraan oo af iyo adanba ku taageeraan yaan shacabka Soomaaliyeed waxa weeye u dirayaa fariinta haddaan nahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed cadowga taagta dareere qawaariista waanu ka adagnahay har iyo habeen goor iyo gool walbaba waanu ka adagnahay waa dadaan waxa weeye fikrad ay ku dhimanayaan la garanin waa dad hawaabsan waa dad waxa weeye ay soo dirsadeen dad shisheeye ah waxa weeye gacan biraan ku qabanaynaa haddii ay ku soo ogol yahay waxaan rajaynayaa bilaha soo socda inaanu waxa weeye cadowga ummadda Soomaaliyeed ee qawaariiska nabadiidka ah inaanu ka takhalusno tabar ahaan iyo waxa weeye taakul ahaan iyo mabda ahaanba weylitaan kolkii laga biqi jiraada lama joogo nin walba waxa weeye Soomaaliyeed oo damiir leh ee waxa weeye garanaya gobonimada waxaan ugu baaqayaa cadowga taagta daran ee meelaha meereysanaya in waxa weeye ay ku qaadaan dagaal wada jira garab istaagaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed intaas aan ugu baaqayaa geesiyaasha xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan idin sheegayaa haddaan noolaano oo guusha iyo gobonimada ummadda Soomaaliyeed ay taamaysa aan soo qaban oo qabaarista waxa weeye ummadda Soomaaliyeed ka xoran inaanu ku noolaano annaga shacabkanaga Soomaaliyeed ba xornimo iyo gobonimo iyo sharaf iyo ciziba kii naga dhintaa ee waxa weeye ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna inuu ku dhimanayo xaq gelayana janno sidoo Ilaahay noo ballan qaadayba waxa weeye afar wiil oo karaamadool waxa weeye la soo siinayo waxayna ku dhimanayaan iyo waxay waxa weeye ku dhaawacmayaan baysa ogeyn na hor istaagi maayaan haddaan nahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan u dhaaranay diinta iyo dadka iyo dalkaba nimanka qawaariista afarta hal ah waxa weeye waa daalimiin waa mushrikiin waa qawaariij ku socota gardari iyo kibir iyadoo lagu leeyahay dadka shacabka Soomaaliyeed xoolahaada keen geelaado saka ka keen oo xooga gabadhaada nasiib oo xooga beertaada ama goofkaada nasiib oo xooga meel waxa weeye ay kaga taala diin islaam iyo tugaaleedba ma jirto ninkii dilaana waa dakhalu janna ninkii dilaana waa dakhalu janna sida inoo sheegan culimada Soomaaliyeed iyo rasuulkuba kaleey salaatu wasalaam ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan leeyahay gagsada geesiyaal baatiin waad gagsateen guushu lama helo iyadoon waxa weeye iyo gobonimada nafna go'in dhiig iyo dhuuxna loo daadin lama helo inaanu gagsano ku gagsano dawladnimada ku gagsano dadnimada ku gagsano gobonimada yaa inoo balana Allahu akbar